skillful skillful xirfad leh yani aad u xirfad badan waxaa la mid noqon kara proficient proficient he was proficient at his work ama waxaad dhihi kartaa he was proficient at his job. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Welcome back. Soo dhawaada mar kale. Haddii aad nagu cusub tahayna waxaan ku leeyahay welcome. Soo dhawow. Cashirka maanta waxa uu ku saabsan yahay sida aad shaashada ka aragtaan wax la yiraahdo synonyms. Synonyms wax kale ma aha waxa weeye ereyada oo isku macnaha ah ama macnahooda uu isku dhow yahay. Marka waxaan rajaynayaa in aad ka baran doonto xoogaa vocabularies ama ereyo cusub ah. Marka cashirkii oo inoo bilowday waa kan. Ereyga ugu horeeya ee aan baranayno waxaa la yiraahdaa iga. Iga waxaa la macno ah ama macnihiisa uu u dhow yahay keen. Macnahana wuxuu noqonayaa qof wax uu diyaar u yahay ama uu u xiisaysan yahay inuu sameeyo. Tusaale ahaan, he was eager to meet his friends again after a long time. Wuxuu aad u xiisaynayay ama aad u danaynayay in uu saaxiibadiisa la kulmo waqti dheer kadib. Ereyga xiga delighted waxa weeye farxad zaa'id ah ama rayn. Waxaa la macno ah jubilant. They were delighted to see their team win the cup. Aad ayay ugu faraxsanayeen in ay arkaan kooxdooda in ay koobkii ku guuleysatay. Sidoo kale jubilant ayaad isticmaali kartaa. Waxaad dhihi kartaa they were jubilant to see their team win the cup. Transform waa isbedelid ama bedelid wax ka bedelid. Ereygan form ayuu ka imaaday oo ah qaab. Marka transform waa qaabkii oo isbedelaya. Waxaa la macno ah change. Sentence haddaad geliso waxaad dhihi kartaa your hairstyle can transform your appearance. Madaxa sida aad u hagaajisato ama aad u jarato muuqaalkaada ayuu wax ka bedeli karaa. Your hairstyle can transform your appearance. Expand waa ballaarasho. Waxaa la macno noqon karaa enlarge. The city was constantly expanding. Magaalada si joogto ah ayay usii ballaarinaysay. The city was constantly expanding. Encourage waa dhiirigelin. Waxaa la macno noqon kara urge. Arrived waa imaansho. Waxaa la macno ah came. Quit waa joojin. Waxaa la macno ah cease. Waxaa laga yaabaa in badan inaad maqasho ceasefire xabad joojin. Ereygan ayaa la isticmaalaa. Destroy waa jajabin ama burburin. Waxay isku macno dhow yihiin demolish waa dumin. Sida guryaha marka ay duqoobaan oo kale waa la dumiyaa kadibna meeshii guri cusub ayaa laga dhisaa. Marka ereygan ayaa la isticmaalaa demolish. Destroyna waxa weeye waa jajabin ama burburin. Useful yacni waxtar leh. Waxaa la macno noqon kara beneficial waa faa'iido leh. Deed waa camal. Action waa ficil. Marka way isku macno dhow yihiin. Sidoo kale ereygan deed waxaa loo isticmaali karaa sida title deed. Haddii aad maqasho waa shahaadada lahaanshaha guriga ayaa waxaa la yiraahdaa title deed.
elevate elevate waa kor u qaadis ama dalacis waxaa la macno noqon kara raise raise jumlad haddii aanu gelino sweet drinks can raise your blood sugar quickly sweet drinks can elevate your blood sugar quickly cabitaanka macaan sokorta dhiigaada ayuu si dhaqsala kor ugu qaadi karaa make waa samayn produce waa soo saaris fresh waa aan la isticmaalin cusub unused aan la isticmaalin evaluate waa qiimayn assess waa qiimayn comments waa faallo remarks faallo suggest soo jeedin propose soo jeedin illegal aan sharci ahayn illicit wax sharci darro ah ereygan illicit badanaa saxaafadda markay isticmaalayaan waxay isticmaalaan daroogada xaaraanta ah ama sharci darrada ah markay ka hadlayaan way adeegsadaan waxay yidhaahdaan illicit drugs jeopardize waa khatar gelin ama halis gelin risk ayaa la macno ah ereygan risk marna ficil ayuu noqdaa oo wuxuu noqdaa khatar ama halis gelin marna noun ama magac ayuu noqdaa oo khatar ayaa lagu macnayn karaa marna khatar gelin jealousy waa masayr envy waa yacni qof ereygan macnahooda waa isku mid lama dhihi karo laakiin way isku dhow yihiin wax yar bay ku kala duwan yihiin ereygan envy waxa weeye sida qof marka aad xasdayso oo kale ama aad wax uu isaga haysto aad leedahay maxaan ani u haysan waaye oo kale camal waxaas markaas ayaa ereygan envy la isticmaalaa jealousyna waa masayr oo sida labada qof oo lamaanaha xiriirka ka dhexeeya masayrka ay isku qaadaan marka way isku dhow yihiin macnahooda laakiin wax yar bay ku kala duwan yihiin invisible waa aan la arkaynin wax aan la arkaynin oo qarsoon ayaa waxaa la yidhaahdaa invisible unseen aan la arkaynin harsh waa daran ama adag ama aad u xun severe ayaa la macno ah tusaale waxaan dhihi karnaa the weather was harsh yesterday cimilada aad ayay u xumayd shalay hazardous halis ah khatar ah waxaa la mid noqon kara dangerous sincere daacad ah honest skillful xirfad leh yacni aad u xirfad badan waxaa la mid noqon kara proficient he was proficient at his work ama waxaad dhihi kartaa he was proficient at his job si fiican ayuu u yaqaanay ama xirfad fiican ayuu u lahaa shaqadiisa grudge waa cuqdad waxaa la mid ah malice waa cuqdad mistake waa khalad waxaa la mid ah error captive waa la hayste qof la haysto waxaa la mid ah
hostage hostage la hayste rich rich waa qani ah taajir ah waxaa la mid ah wealthy wealthy hanti leh profit profit waa faa'iido waxaa la mid ah gain gain arrest arrest waa xidhid waxaa la mid ah detain detain disorder disorder waa isku qasnaan isku dhexyaac waxaa la mid ah chaos chaos isku dhexyaac apparent apparent waa iska cad waxaa la mid ah evident evident iska cad powerful powerful xoog badan waxaa la mid ah strong strong vanish vanish waa sida shay marka uu araggaada ka qarsoomo ama la waayo ayaa waxaa la yidhaahdaa vanish waxaa la macno ah disappear disappear waa la waayay ama araggu wuu ka qarsoomay purchase purchase waa soo gadasho ama soo iibsasho waxaa la macno ah buy buy hard hard adag ama adayg ah difficult difficult reluctant reluctant waa cagajiid ama qof waxa uu rabo inuu sameeyo ka labalabeeya ama ka cagajiida reluctant hesitant hesitant ka labalabayn ka cagajiidis loyal loyal daacad ah faithful faithful iimaan buuxa leh faithful price price waa abaalmarin award award waa abaalmarin promise promise waa ballanqaad waxaa la macno ah guarantee guarantee waa ballanqaad prolong prolong waa dheerayn extend extend waa dheerayn deceased deceased dhintay waxaa la macno ah dead dead deceive deceive waa siris ama khayaanid waxaa la macno ah cheat cheat unusual unusual aan caadi ahayn waxaa la mid ah irregular irregular hybrid hybrid waa isku jir ah waxaa la macno ah mixture mixture isku jir isku qasan dispute dispute waa muran ama is-afgaran waa waxaa la macno ah disagree disagree sing sing waa heesid ama ku luuqayn waxaa la macno ah chant chant risk risk waa khatar gelin waxaa la macno noqon kara danger danger ereygan risk marna wuxuu noqdaa khatar marna wuxuu noqdaa khatar gelin cashirkii maanta intaas aynuu joogo inta aynu ku kulmi doono cashirkan la mid ah waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Thank you for watching this video. Please don't forget to subscribe and share the video.